hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xaliimo Axmed Farax oo ku nool magaalada Minneapolis ayaa dhaawac halis ah loo geystay kadib markii haweeney Mareykan madow ah ee hooyadaasi Soomaaliyeed ay bistoolad madaxa kaga garaacday kadibna toogatay. booliska magaalada Minneapolis ayaa soo gaaray halkii uu weerarka ka dhacay iyadoo haweeneydii weerarka geysatay ee goobta ka carartay waxayna horay u sii qaadatay boorsadii ay lahayd hooyada Soomaaliyeed ee dhaawaca loo geystay. waxaana hooyada Soomaaliyeed loola cararay isbitaalka halkaasi oo muddo toddobaad ah ay ku jirtay walow hadda laga soo saaray xaaladdeeda caafimaadna ay ka wanaagsan tahay sidii hore. hooyadan Soomaaliyeed oo da'deedu ay tahay 70 jir ayaa waxaa ku booqday guriga ay ka degan tahay magaalada Minneapolis waxaana weydiiyay sida ay xaaladdeeda caafimaad hadda tahay iyo sida ay wax u dhaceen. waxaan aaday bangiga ilaa guriga kiraa iyo waxbaan ku jirnaa waa soo lugeeyay guriyaha eridooda guriyahaas 2019 ka eridoodan soo maray wax yar markaan ka soo socday shanqar baan maqlay gadaasheeda iga dambaysa saanaan u fiiriyay qof jaakad qaba oo sanku u xiran yahay oo dhalinyaro ah baa i daba socota waxba uma qaadan waa iska soo tagay waa iska soo socday waxaan imid eridda waa soo eridda iyadoo taagan oo taleefan wax saas ku jirta waan soo istaagay eridda furahaygaan la soo baxay gurigan furahi geliyay ma ay yeelin gadaalsheeda inta saatay jaakada ee bastooladii kala soo baxda bastooladii markay la soo baxday tiri hansab saasay igu soo taagtay Soomaali baa taqaanaa dhiig jinaa ku jira tan saas u fiiriyay oo furihii sii daayay oo furihii guri meesha ka lusho baa irmaana bastooladii la soo baxaysa ee oday iga qaad halkaas iga dhacda markay saa igu dhacday bahashi oo caradii oo dhan wax igu noqotay oo waxay iga dhifatay haddana sinta waa xabada meeshaas xabadii bay igu dhifatay sinta iyo barida isku martay goosatay waan wareeray markii aan wareeray weliba waa qayliyay wax ii soo baxa waa waay okay maradii iyo gambadii iyo boorsadii halkaan ii surnayd iyo wixii oo dhan bay iskula baxda jaranjartay ka degtay maxaa ku jira marka boorsada lacag baa igu jirtay aan bangiga ka soo qaato $1,000 ahayd. booliska magaalada Minneapolis ayaa saxaafadda isugu yeeray maanta kadibna nala wadaagay dabagalkii ay sameeyeen iyo in ay gacanta ku soo dhigeen haweeneydii falkaasi ka dambeysay. waa kan Sarjan Cabdiwahaab Cali oo ka mid ah booliska magaalada Minneapolis oo la hadlay telefishinka Universal sheegayna in haweeneydii falkaasi ka dambeysay gacanta lagu soo dhigay. magacayga waxaa la yiraahdaa Sarjan Cabdiwahaab Cali waxaan ka shaqeeyaa qaybtan robbery unit-ka dhinacyada waxa taagan waa Sergeant Green, Charles Green and Sergeant Thompson. waxay ka shaqeeyaan homicide unit-ka. Saturday markii arrintan dhacday duhurkii isla markii waxa ay soo wacay Commander Adams oo ii sheegay wax arrintan dhacday. wuxuu iga codsaday inaan case-ka ka shaqeeyo maadaama aniga aan shaqeynayn markaas off ahaa. maalinta ku xigtay Axadii aan case-ka bilawnay aniga iyo labadan detective oo jeedaan Sergeant Thompson and Sergeant Green case-ka waqti badan la galiyay runtii cases-ka way kala duwan yihiin laakiin case-kan wuxuu ahaa case ka xumaadeen community-ga ee ka xumaadeen department-ga the Minneapolis Police Department investigation-kana markii la bilaabo runtii all the investigators all the way from homicide to the assault to the robbery kulligood they were very helpful from the beginning markii case-ka bilowday so caawimaad far badan ay siiyeen case-kii iyo case-kii aan sii bilawnay waxaan ku guuleysanay arbacadii la soo dhaafay bishii 3 markii arbacadii la soo dhaafay bishii 6 bay ahayd inaan soo qabano naagtii toogatay gabadha macnaha hooyada Soomaaliyeed 76 sano jirto oo intee u daba raacday public housing gurigeeda ka daba gashay xabad ku dhufatay madaxa uga garaacday bistoolad ku jajabisay maamadii xabadna way ku dhacday madaxan laf baa ka jabtay dhiig baa xataa ugu furmay dhaawac weyn bay gaarsiisay marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo qabanay oo ayadii iyo xabadaheedii aan soo qabanay iyo dharkay wadatay iyo kulli
oo markaan wareystayna ii qiratay inay dambigaas gashay. Marka haweeneydan oo 21 jir ah ayaa qiratay in ay weerartay hooyada Soomaaliyeed, waxaana baaritaano kale oo la sameeyay lagu ogaaday in ay weerar kale oo noocan oo kala ah ay horay u gashay, taasi oo u muuqata in ay si gaar ah u bartilmaameedsanaysa Soomaalida, walow booliska ay arintaasi ka gaabsadeen in ay ka hadlaan. marka community-gana ayagana waxaan ku dhihi lahaa naagtan waxay liir ku lahayd si Riverside case kale oo ka dhacay 2 case kale oo Soomaali ayagana la dhacay xabad lagu qabtay. marka Soomaalida waxaan u sheegi lahaa caseska noocan oo kale inaan very serious u qaadano oo all the resources ay heli karnana aan saarno. magaalada Minneapolis oo ah magaalada ugu badan ee Soomaalida Mareykanka ee ku nooshahay ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay faldambiyeedyada, walow booliska magaalada Minneapolis ay si aad ah u dadaalayaan isla markaana ay doonayaan inay soo celiyaan sharaftii magaalada Minneapolis. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajo, Fasal TV, Minnesota.